Hello, السلام عليكم وأنا قاعد أفتح إبراهيم حاجة waxaan ku eegi doonaa serieskan ama maxay ahayd tutorialskan soconaya inaan ku eegno basiga uu leeyahay SQL ama SQL ama structured query language-ka. Okay. Waxaanu samayn doonaa introduction baynu ku samayn doonaa dhowr video oo ku saabsan waxa uu yahay SQL-ku. Kadibna waxaan eegi doonaa qaabka maxay ahaydey loo isticmaalay queries-ka. Okay. Xaggan saad ka arkaysid waxa uu ku leeyahay what is SQL? SQL-ku muxuu yahay? SQL-ku waxa weeye waa standard language. Macnaheedu waxa weeye waa luqad standard ah oo waxay isticmaashaa American National Standards Institute wax loo yaqaano ama ANSI. Okay. Ama sidoo kale ISO International Standards Organization baa loo yaqaana. Okay. So marka SQL-ku waxa ugu muhiimsan ama definition-kiisa la odhan kara SQL-ku waxa weeye shay inoo qabanaya accessing macnaha shay aanu ka dheehan karno wixii information inoogu jira databaseska. Sidoo kale aan ku samayn karno waxa loo yaqaano manipulating ama manipulation, modification wax ka bedelis aan ku samayn karno. Okay. Definition-kiisa saas uu noqonaya. So basically xaggan wuxuu kuu sheegayaa waa maxay functionska ama muxuu qaban karaa SQL-ku. So mostly SQL inaad tiraahdo way fiicantahay. SQL-ka ama SQL execute queries wuxuu execute garanayaa ama uu ka shaqaysiinayaa queries-ka la geliyay macnaha la doonayo in wax looga soo saaro databaseska. Macnaha queries-ka ayuu ka shaqaysiinayaa. Sidoo kale SQL-ku waxa uu retrieve garanayaa ama uu soo saarayaa data uu ka soo saarayaa database-ka. Sidoo kale waxa uu sameynayaa insert records-kii inuu record ku geliyo ama macluumaad ku geliyo database-ka. Sidoo kale waxa uu sameynayaa inuu delete inuu sidoo kale ka delete gareeyo record. Sidoo kale waxa uu sameynayaa shaqooyinkiisa kamid ah inuu update gareyn karayo wax ka bedel ku samayn karayo. Sidoo kale waxa kamid ah inuu kuu samayn karayo database cusub. Sidoo kale waxa kamid ah shaqooyinkiisa inuu database-ka kugu create gareyn karayo ama kugu samayn karayo dhexdeeda wax loo yaqaano tables aynu arki doono. Waana shayada ugu muhiimsan marka laga hadlayo RDBMS xagga dambe aynu ku arki doonaa ama Relational Database Management System-ka. Okay. RDBMS-ka aynu eegno ama Relational Database Management System-ku waxa uu yahay intaas u taagantay. RDBMS-ku waxa weeye waa base-ka uu leeyahay SQL-ka ama modern SQL languages-ka sida tusaale ahaan oo kale ama database modern database systems-ka sida MS SQL-ka oo kan isticmaali doona casharkana IDB ama DB2-ga Oracle baa kamid ah MySQL baa kamid ah iyo Microsoft Access-ka kamid ah. Okay. Sidoo kale waxa kamid ah waxa loo yaqaano ama database management system-ka marka ka hadlayno RDBMS-ka. Maxaa loogu bixiyaa lagu oran karaa relational databases-ka? Waxa loogu bixiyay relational database-ka ama xogta inoogu jirta RDBMS-ka waxa lagu kaydiyay object ama shay loo yaqaano table. So table-kaasi waa shay isku xidhan ama entities baa la dhahaa macluumaad isku xidhan weeye. Tusaale kale school macluumaadkiisa oo kale qofka waxa ku jira ID-giisi, magacii hooyadii, fogiisa waxyaabahaasi waa entities ama shay isku xidhan oo lagu kaydiyay table. Kana kooban wax loo yaqaano column iyo rows loo sameeyay jiifutax iyo joogtax baa Soomaali lagu noqonayo lagu oran karayo. Okay. So marka RDBMS-ka ama waxa loo yaqaano relational-ka saas lagu bixiyay. Okay. Waxa jira wax loo yaqaano SQL syntax-ka. Muxuu yahay SQL syntax-ku? Tusaale waxa weeye tusaale waxa inoo yaala wax loo yaqaano select statement ayaa loo yaqaano. Okay. So marka select statements-ka waynu soo dooranay. Table-ka magaciisu yahay baan ka soo doortay waxaana soo baxay information-kii table-kaasi lahaa. Okay. Sidoo kale waxa xagga hoose ku qoran note SQL queries-ka mostly waxa fiican inaad ka dhigto file waaweyn. Waayo waa si professional laakiin isagu maaha case sensitive. Macnaha haddaad xaraf kaabiso wax kale kuu qabsan maayo. Okay. Sida luqadaha kale ay jiraan. Okay. Basically intaas waxay noqonaysaa very basic information kooban oo ku saabsan SQL-ku waxa uu yahay iyo waxa uu inoo qabanayo. Okay. So marka casharka kan ku xiga waxaynu eegi doonaa sida loo create gareeyo database. Okay. Sidoo kale hadday daruuri noqotona waxaanu arki doonaa qaabka installation-ka loo samayn doono anoo dib ugu shubi doono computer-ka. Lastly waxa weeye references-ka
slurska markaad hesho waxaad ka arki doontaa maxay ahayday inaad samayso oo aad ka download garaysato kadibna aad ka akhrisato okay waa mahadsantihiin dhammaantiin